gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab gudoomiyaha gobolka Banaadir wafdiga caalamiga reer Soomaaliya ee uu hogaaminayo dhammaan madaxda iyo marti sharafta iyo culimada diinka ka kala yimid wadamada dariska iyo Sweden-ba waxaan ugu horeyn bay leeyahay ku soo dhawaada kulankeena fiidnimo ee aan ugu talagalnay inaan ku maamusno ku soo dhaweeyno kagana dhageysano warbixinta magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya mudane General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab inta kadib iyadoo barnaamijkeena caaway runtii aan dhihi karno waa nasiib reer Sweden ay leeyihiin iyo inta kala qayb galayso ayaan rabnaa marka ugu horeysaba inaan u yeero ujeedada kulankani inuu hal iyo laba inuu yiraahdo mid ka mid ah mas'uuliyiinta reer Sweden oo isaga markaa ka mid ah dadkii barnaamijkan ay soo tageliyay waa in aad la taqaanaan waa Cabdicasiis Geedi oo aan leeyahay ku soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن يا مروين مرتي شرف تقييمها يقايا له كسر قيب شيء عاوة حفلة سود وينته يعني قلت لك أن هنا كسر وينه قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مقالة مقدشة مدن حسن محمد حسين منقاب وحاضي أنها جارية رير سويدن فرحت أن لسوكو بكرنوع إن كدب مركي ولوريجي مسؤولية الجول كبنادر إن نصيبه يلانو هدي أن رير سويدن جارية هو الرئيسي أو يوروب أما نورث أمريكا كتها الله وسوكا إن نقولنا وحنوطا فرحت taas waxay ka turjumaysaa wadaninimada iyo dawlad jacaylka reer Sweden ay caan ku yihiin mudane gudoomiye iyo mudanayaasha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyagana meesha fadhiya marti sharafta la socota waxaan idin leeyahay aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qaban qaabada soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gacmo furan oo kaliya laado ku soo dhawow wadanka Sweden caasimadiisa Stockholm hadal idinku daahin ma ugu mana talagelin inaan hadal idinku daahiyo muddaad fadhiseen laakiin waxaad u fadhiseen inaad soo dhaweysaan mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta ugu qaalisan oo aan leenahay insha Allah waxaan idin leeyahay idinkana aad iyo aad mahadsantihiin inta iskadib سؤالي waxay tiraahdaa hadal haan ma buuxsho hadalkaygu waxaan ku soo koobayaa aayadii Sheekh Hussein Cigaalow yiri dadka la rabo inay ku dhaqmaan ay ku amal falaan waa idinka marka intaas niyada ku haya taasaad ku horumareysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليه ومرحاتي مدونتو إن تدك وقوية يوروب كدقن gaar ahaan Sweden ay u tahay habeen taariikhiya kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir booqashadiisa koowaad
runtii uu ku soo gaaray waqooyiga Yurub caawa iyo maalmahan uu ula joogay dalkan Sweden taan waxaan leenahay waa mid aan xasuusnaan doono kaalinteedana aan qaadan doono haddaan dadka waqooyiga Yurub degan gaar ahaan dadka degan Sweden runtii waxaa farxad ah in caawa halkan ay u dheeyihiin dadkii mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ama indhihii bulshada Soomaaliyeed ee waddanka waqooyiga Yurub maadaama ay joogaan xildhibaanada golaha deegaanka ee Norway xildhibaanada baarlamaanka ee Sweden xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah Sweden laftirkeeda iyo waliba xildhibaanada dalkeena hooyo Soomaaliyeed oo nagala joogo Khaliif Maxamed oo wada taqaanaan inta kadib Cabdicasiis uu mahadsan yahay sida ujeedada kulanka oo noogu qaabal dhigay haddaba aan hore u soconno aan furno shirkeena aan u raacno fariimihii aan kala qaadan lahayn isweydaarsan lahayn haddayna jaaliyadda reer Sweden iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wafdigiisa uu horkacayo waxaan rabaa kelmadda koowaad haddaynu nahay reer Sweden waa ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed Sweden oo matala jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden ururkaas 95 Allah u naxariisto Sheekh Faaruq oo aasaasay mas'uuliyiintiisa mas'uulka ugu sarreeyay gudoomiyaha ayaan codsanaynaa booskii safaaradda ama safiirka inoo joogo inuu kelmadda koowaad ee soo dhaweynta uu qaato waa Cabdinuur Maxamed Ciise oo la sacabka soo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مرموين سوى دوادا سوى دوية قدوميها عاصمة دولة الصومالية مدن حسن حسين علي حسن محمد حسين حسن سودو إلهي الهاجس كتير ما هذا لبعض محمد ريا قبل وراشين سارة بالخدلة يقول كحاوتاكو وعزومدان كشقيي سيسوق حرام مقالة ستوكهولم يمكشف انت ما لحظة لك السؤال ما قدر وفرين كأهري سويدن وقدوميها كيفنين أريسا سواء ضدك كنا المقالة المكشف dadka ku nool gobolka Banaadir cadaalad hadii lagu xukumo waxaan boqolkiiba aaminsanahay in ay caasimadeena soo noqon doonto Afrikana hogaamin doonto Afrika intay hogaaminna inay hogaamin doonto gobolada Soomaaliyeed magaalooyinka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed indhaheena inay soo noqon doonto بلا سنان بلا عدالة وطن كان معنا جوجنين مانت والأكتين دد مدوبنا هاي مدوبي مسلمة حسينا هاي عذرني ولا إيش إنه قبنا يسار لكن عدالة هي شرعية كردم بين با وطن كان يالله ساس درادة بقولنا الله قدومية دولة الصومالية هي ضد الصومالية وحنا كسوينا عن تاسع إلا إنه يدرسوا يماذا إنه لا أقبله ضدك لقى بديه إن حقوق هذا السيء إن لو قرطوا لما إنه يضع ذا معه إنتاس هل مدبا قدرية مانديلا ناس مانديلا جرنيسين أو مدحويني ساوث أفريقيا هاوبنتي مركو مدحوينا نقدي وحو صوب بقدي دولة يقول رئيس وينباك سموه وحو صوب بقدي إنه دوا ما سنتهين تاريخنا هو قشة سويدن wax alla wixii South Africa ay u baahnayeen dadkii apartheid la dagaalamay Sweden baa bixin jirtay maanta dawladda Sweden Soomaaliya way garab gashay gudoomiyana waa loo yimid ayada taariikhda la reer Sweden ay asagu soo hormaray isgarta هذا البدر ما كنت هنا وعمل أنا عاوة بدو يمونجاب ولا سويها ماشي أنا بقول فديها سؤاله ويبدأ دوران مركزات دراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالتي runtii odayaasha Soomaaliyeed ee marka ku hadli doona magaca odayaasha waqooyiga Yurub gaar ahaan Sweden waxaan u yeerayaa Abuukar Socdaal oo isagana aan rabno inuu kaalintii odayaasha caawa iyo kelmadii kaga aadinay kulanka oo inoo qaabaalay shacabka waa xaqiiqi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلهي ذا مهد إسكالة سوكا مكاني حرمتان أو عاوة نصيبها شيء إن قدوميها قبل كبنادر جنرال حسن محمد حسين مونقاب أو نووي ما دون نقصه بغضه ونقصه دوينه وحلنا مكورة قدوميها يوفت كيسا صور هذا كسر هذا عاصمة سويدن وجالية الصومالية إذا كوكو صور دقائق إذا كوكو دقائق مناسبات صور دوينه حتى إذا الله يرى ترى وأغرب الجواب وتبرتوها أنت هكرر هذا أنت أسكت وحنا ربا إن هذا الكوا كوابين هيصيروا هذا الدنيا ويري محام كراها أوركا سيدو أسوق جابي إن أسوق جابي واربا لكن وحنا ربا فريمة إن الجدبيون أي غبان ضدكم أنا وحنا كملا يضيعش دغنكا وحمر والبن أسوق دعاء الجواب ويني ونسلاي هاي وحال كرا الدنيا قبل كبراندر جنرال حسن محمد حسين مونقاب وحوي وحينا الصومالي وابكي صباح وحي يسي wax looga joogo waa la waay war guriyaan laga haysatina na wareerisay horta shacabka Soomaaliyeed wixii guriyahoodii ka maqnay guriyaha oo celi waxaan u maleynaa dadan guriyaba lahayn oo guriyaba aan lahayn ayaa guriyo weydiin ugu dilay kuwii lahaay haddii loo celsho waxaan u malaynaa markaas inay arrintu iska xallismi doonto waxaan rabaa inaan tusaaleeyo isagoo jananku iga og oo iga mutacallimsan 8 qarnigii 13aad ilaa 91dii markii la kala yaacay intii ka dhaxaysa Soomaaliya maal gashanaysay caasimadda gobonnimada dadkii raadinayay meesha xarunta u ahayd waaye meesha cadowga lagula wada dagaalamay waaye meesha qofku waxay gali karta gelisay waaye maskax iyo maal iyo muruq iyo dhiig iyo dhaqaalo meesha la wada galshay waaye adraafta Soomaaliya dadka jooga kulligood Muqdisho ay caloosha ku hayaan qalbigooduna raali noqon maayo ilaa caasimadda ay xorriyad iyo ku soo noqosho u helaan waxaan anu kamid ahay dadka ku riyoonayay General Xasan dadka yaqaana oo yaqaana inuu cadaalad oo ka cabsan kana waaban oo ku riyoonay inuu gubernatooraha Muqdisho noqdo ilaahayna marqaati uu iga yahay asagana waa og yahay dadkii waxaan rajadaas qaban kamid ah ilaahay waa u dhiibay waana lagu imtixaamaya waxaan leeyahay caasimadii bilicdeedii iyo soo celintii maaragtay danaheedii adeegeedii guud iyo Soomaaliya sida ugu qanci lahayd adeeg ku agtaal reer Sweden ilaahay bay agtaal adaas maaragtay maantay mas'uul nooga ah annagana reer Sweden si gaar ah waxaad dhihi kartaa intaas garab iga siiya intaasaan u baahannahay waxaan isleeyahay qurba joogta waxa ugu horseed ah reer Sweden anigu 6 sano joogay dadkii iga horeeyay waxay aad iyo aad ugu guuleysteen inay waxay rabaan Soomaaliduna ay kaalmeeyaan ay hormood ka noqdaan sidii مثلا maxaakiimtii oo kale waxa ay Soomaalidu diidaan inay ilaa Belgium barafka u seexdaan ay iyagoo diidan dalka la qabsanayo ayay maaragtay hormood ka ahaayeen reer Sweden haddii aan u kala socdaal oo ahaa iyadoo kelmadihii kale noo dhiman yihiin ayaan rabnaa markan waxa caawa nala jooga halkan xildhibaano taytarka xildhibaanimo ay wataana aad u badan yihiin runtii iyo wadamada ay kala matalaan laakiin waxa farxad noo ah dhamaanteen markaa Soomaali wada nahay waan u wada nimid gudoomiyihii caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho mudane General Xasan Maxamed Xuseen Mungab waxaan rabaa inaan halkan iskiin baro أمير أو أبو تقانان أو حلبان برلمان Sweden كجرا وحجرب بسفرية حلبان قلها ديجان كا أو باشة أو نرويجيا إنجنير عنشور سيدو كلامته وحجرب بسفرية سجنا إنجنير إبراهيم إذا ما برايو بدولية قبل كبنادر وحبضنا يديك بديسان وحنك كلا كفريو حلبان كانوا سعداء حلبان كقولها برلمان الصومالية استجمع مع تلك النصيب ويا شيء نوريس من اللي جوا ولا بدو كتير سنة وحاسلوا كله توجيس كانوا فرديو يعني كتير ومحمد أمين وأهل تليها استجمع قبل كا وحاجة شيء تاجن صاحب عبد الفتاح حلنم وأستجمع واسمها ورباين قبل كا بنادر لما تصعب يومين isbarasho kadib hal iyo laba inagoo waqtiga lagu yareeyo ka faa'iideysanayna numberkana badan yahay
ayaan rabaa kelmaddii markaan dowladda Soomaaliya teetalkeedii ugu sareeyay caawadka nala joogay uu ku leeyahay kulanka inuu hal iyo laba naga dhaho waa xildhibaan Khaliif Maxamed Xaaji waan rabaa saxan ku soo dhaweysaan هذا ما سنتي حسين حسن محمد حسين شنال مونقاب وقتك شرفت بدن الله الصحراء قدوميها أورك ريكسكا أورردا أورك ريكسكا وضيات تقربتك أقول يعني gabdhaha sharafta badan oo xaawa halkaas ku soo xilqaamay oo nabarkooda aad u badan yahay aad ugu faraxsanahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa runaantii hadda anugu waxaan u hadlaa marka dadka wax soo dhaweynaya mase mar haddaan baarlamaanka xubin ka mid ah aan ahay baarlamaankii baan kaga hadlaa marka caawa xiisu wuxuu saaran yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir anugu halkan deegaan baan ku leedahay xamarna waa ka shaqeeyaa dowladda baan ka mid ahay marka inaan wax ka iraahdo maaragta waa muhiim Soomaaliya inaan la soo dhaweeyo chairmanka gudoomiyaha gobolka Banaadirna ayaduna waa muhiim aad baan u soo dhaweynayaa soo dhawaada adiga iyo waqtigaaguba حقيقي وحوي الدفع الصومالي واحد مكان وحكا إرادة وأكتين وحا ساميي تقال أهلي أو كل إرادة أو معنيسة وحو الصعودة اللي قرني الدفع الصومالي دانا ضد وحوي سكون نوعه أو مدبكا اسكاقمدة دينتا اسكاقمدة إهل لماذا إيه ولا لماذا يصير هو الدين بدمان تدبر وحد المضاء ممكن الصعود أي كوكل الدوية أي سجرين. دلكن وعدم برواقة وحد أكتب إنه برواقة كيه بطة أو الوقية سيصدق بقول هي اللباتن أو متر متر بدأت وحد أكتب دلكن إنه دل برواقة هي أو مال الله ماشي وحلو أبوره أي برواقة هاي أو دلكا بطة حوها هوذا عن هيسنه iyo maaragtay quruxdeeda ayadana waa garanaysaa saddexaad beelood barwaaqo ka yahay marka waxa dhibaatada haysataa waxa weeye saddex cadow yeesha marka si aan barwaaqadaas loo soo saarin saddex cadow waxa weeye midka ugu horeeya waa 4.5 qabiil weeye qabiil baa halakeeyay oo xaqiiqdii maaragtay si xun loo isticmaalay qodobka labaad waxa weeye dad dhiigga Soomaalida oo muslimka ah banaystay oo le muslimka waa ku jirnay tagayna ayadana waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa qodob aan kor loo qaadin oo ah siyaasad dabadeed weeye oo runaantii korna looma qaado sababtu waxa weeye dad tabar yar baan markaan tabar yar naayna sida baarlamaanka taabto waa iska dhowrnaa inaan maaragtay dawladaha galbeedka iyo Yurub Afrikada kale iyo Carabta inaan wax ka sheegno waa ayada laftigeeduna dibay loo keenaysaa warkayreynayaan waxaan rabaa inaan u yeero markaanba Professor Culumo Cabdullaahi waa aqoonyahan waa hooyo Soomaaliyeed oo iyadana halkan kelmadii kaga aaday caawa ka qaadan doonta Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal marwooyin halkan ayaan salaanta islaamka ayaan idinka salaamayaa salaan dabadeed waxaan dhahayaa maaragtay ku soo dhawow حسن محمد جنرال كامونكا ويلكم أن كلنا هاي سويدن أنا جو أبغى فرح سني ما تنكاجا كان سوه الرئيسي وحقبت كاجا أو أن مر والبا ميديا أنا كداونيني أنا جنا أنا هني قفدت هراي كويقيني أو ما تكاهد لكرا وحقبت كاجا نروح متكلية عن هني كحم ما هاي عن قربة وسيتاجنا هاي وحكمدا الحل بانا ده موشن كجلا يو واحد وقت كتير موشن ما سحنا يو موشن ما سحنا
codsanayo dowladda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa in ay isticmaalaan military force hadday isticmaalaan dadweynaha lugahooda ku istaagayaan intii xun lugahooda ku istaagaysa inta muwaadiniinta ana hore u soconaysa kan muwaadinka ahayn waqtiga ayaa fadhiisanayo Soomaaliya ha noolaato mooshanka inta wadana ha dhacdo moogaamna dadaalkiisa ha ku guulaysto ilaahayna garabkiisa ha galo annagana garabkiisa galayna assalaamu calaykum xildhibaanka Soomaaliyeed ee Swedishka ee fadhiya isagana hal iyo laba caawa halkan naga dhigi doono saxabka waa xaqiina waa Amiir Aadam oo xildhibaanada Soomaaliyeed ka mid ah Assalamu alaikum. I would like to welcome His Excellency, the Mayor of Mogadishu, Hassan Mohammed Hussein, and the delegation to Stockholm and Sweden. I know that you've been having a good program, meeting politicians, organizations, the Somali community here in Stockholm, as well as business people. And I know that the following days will be even brighter and more fruitful, and you have a lot of scheduled ahead of you. I will introduce myself. My name is Amir Adam. I'm a member of the Swedish Parliament for the Moderate Party since 2010, and I'm a proud Somali. I've been one of those who invited the Mayor, His Excellency, to Sweden, to Stockholm, to get a straightened band between Sweden and Somalia. But also to get them to know how the Swedish election system works and how Swedish elections are made true. So they're here to see how this Swedish election, the 14th of September, will work, and they will learn to get home to Mogadishu because they know that they want to have a local election 2015. I'm happy to see that Somalia have been going forward, and I'm sure of that Somalia will have a bright future, but we all need to help. The Swedish government is supporting and contributing to Somalia in different ways, for reconstruction, for democracy, for elections, for helping out to become a safe country. xildhibaanka golaha deegaanka Norway ee caawa isagana martida noo ah ee halkan nasiibka u yeeshay inuu nagala soo qayb galo isna aan ka codsano hal iyo labo inuu halkan ka jeediyo waa Baashe Muuse oo garabkiisa fadhiya sida la idin sheegay magacaygu waa Baashe Maxamed Muuse marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta markaan ka gudbo waxaan runtii waxay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan chance maanta u helay inaan ka soo qayb galo madasha sida wacan loo soo abaabulay ee loo soo agaasimay waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa guddiga qabanqaabada iyo jaaliyadda Sweden ee xilka iska saaray in ay keentaan waddanka Sweden gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Xasan Xuseen Mungab runtii waa arrin lagu diirsado inagoo markaa idinku ah reer Sweden oo nasiib u yeeshay annaguna runtii aan kula tartamayno aan islaan idinku ka horeeya haddana kama xumin inaad inaga horeyseen waa wax runtii aad iyo aad loogu farxo waxaan walaalayaal jecelahay inaan idinla qaybsado madashan wanaaggeeda maanta haddii ilaahay idmo waxaan salaam gaar ah idinka sida jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway oo annagu haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed horta reer Sweden waxaa naga dhexeeya tartankaas waa mid caafimaad qaba oday ka mid ah odayaasha reer Sweden oo magaciisu yahay Maxamuud Sheekh Khaliil waan leeyahay ku soo dhawow kelmadda daqiiqad iyo laba aan ku soo koobno kelmadaha idinkoo mahadsan si fursad badan ay u helaan hadalka ma raba inaan badiyo maadaama aan ka mid ahay odayada Stockholm
waxaan ku raacsanahay dhammaan intii iga horreysay mahadcelinta iyo soo dhoweynta odayaasha aqoon-yahanka dadka gobollada ka yimid iyo wafdiga sharafta ee gobolka banaadir nooga yimid waxaan la qabaa dadkii iga horreeyey waxaan rabaa inaan warkana soo koobo in yarna aan ku soo koobo soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynayaa midnimada intay noo jirto horumarka noo jira marka qaybsanaantan gobollada waxba nama tarayso waxaan rabaa si gaara inaan oola dardaarmo mudane muungaab sida hore looga dhawaajiyey magaalada muqdisho waa miraayadii waddanka talooyinka aan halkan ooga soo jeedinayna waxaan rabnaa inuu si gaara ugu qorto waa marka koowaade waddanka Sweden wuxuu ku dhisan yahay wax la yiraahdo canshuur qofka haddii uusan dhaqaale helin canshuurna uusan helin wax ma qaban karo sidaa darteed ganacsatada Soomaaliyeed waa ogtiin Dubai canshuur bay ku bixiyaan muxuu ahaa Nairobi waa dhisan canshuur ay bixiyaan waay ay xamar ugu bixin laayeen canshuurta waxaan salaamayaa dadweynaha isku yimid ee quruxda badan oo soo dhaweynaya xubnaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada xasan muungaab anigoo ku hadlaaya horta jecel xubnaha gobol waxaan kuu sheegayaa waxaan ahaan jiray xubnihii gobolka waxaan ahaan jiray xogeyaha abaabulka ururka dimuqraadiga haweenka Soomaaliyeed baan ahaa aan iska bare waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan nagala soo qaybgashin xafladan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo waxqabadkaagii gobolka banaadir duqa magaalada xamar Riverside magaalada xamar magaalada madaxdeedii aan jeclayn aan ku dhaaranaynay oo ay ahayd 13 degmo ee gobolka banaadir waxaan ku leenahay nabad ku waar gobolka banaadir ay nabad ugu baaqumada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay ku leeyihiin ummadda inta joogta indhaha noo fur gogasha noo fur si aan wada hadalno dhibaatada kala gaadhay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Sweden gaar ahaan Stockholm waa in u furtaa buug cusub ay kugu hirtaan oo ay aad ku soo dhaweysid barnaamijyada oo ku hadlaya magaca gobolka banaadir waxaan leenahay ururka xawataaka waxaan leenahay wax fiican ayay muujiyeen waad u jeedaa bulsho badan bay isku keeneen waxaan leenahay iyadana waxaan leenahay halkaa ka sii wad horumarka iyo damaanshaadka markasta aad ku taagan tahay inaad ummadaada taageertid gobolkan aad horumaris baan rajeynayaa sahra farxadle waxaan rajeynayaa gudoomiyaha isbahaysiga Soomaaliyeed Jaal Cabdinuur oo sida quruxda badan u hadlay sida Soomaalinimo u hadlay asagana waxaan leenahay halkaa ka sii wad Jaal Cabdinuur waxaan ku leenahay Jaal xogeen adiga guddigaaga waxaan ku soo dhaweynaynaa si kalmad raxmad ku jirto walaaltinimo ku jirto ay ummadaas dhan magaceeda ku hadlay rag iyo dumarba baan ku soo dhaweynaynaa baraka laga qabso I'm
Welcome to Sweden. Sweden kusoo dhawaada. Waxaa la qabaa intii ugu horeysay. Anigu xamar baan ka yimi 2012 baa xamar igu dambeysay. Weliba xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed baan ka mid ahaa. Dowladdii Ilaahay ha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf baan ka mid ahaa. Kii dambe Sheekh Shariif baan ka mid ahaa. rag badan oo aan wada shaqaynay baa halkan fadhiya. xamar xoogaal badan baan u ahay inkastoo laga yaabo intii guddoomiyuhu aan ka soo maqnaay uu qabtay xilka in wax badan iska bedeleen aana ugu mahadnaqayo wixii uu ka bedelay isagii tiimkiisu. kelmad waxaan ka dhahayaa midnimada ummadda Soomaaliyeed waa tacaawun isu keentay innagoo aan ismagac iyo weji garanayn badan oo ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliya oo kala go'goodayna ka kooban intooda badan halkan waxaa isugu keenay calanka buluugga shida geesla inaga dhexeeya qof walba ummadda Soomaaliyeed oo calankaa watana wuxuunbaa u nool qof kastoo calanka Soomaaliyeed weli wata wuxuunbaa u nool oo waa qof Soomaaliya laakiin waxbaa khaldan oo u baahan in la saxo waxaa inaga khaldan insha Allahu tacaala وورين لو إلهي لك عشاننا كذبنا دبنمدنا يدميركن يدينكن يغوتن استعمالنا إننا وسحنا ليوم بعيد تصاريها وقبيار الهل يا علم الله واي وحنا قبيار الهل يا سؤال واحد على واحد بيت كان يقول بفتح أو عافي ماذا هذا الباكر هذا القاضي بيت كان يقول بفتح عافي ماذا لكن وين كلام يقول بنت هذا بيت كان يقول بفتح Soomaaliya way go'go'day qabaa'il bay u kala go'go'day jilib bay u kala go'go'day aan idinku dhaaran karayaa magaalooyinka Soomaaliya ku yaala xataa tuulooyinka yaryar ee kontonka guri ama lixdanka guri waxaa loo kala degan yahay jilib baa loo kala degan yahay lama wada dego Muqdisho la wada deganay xafada loo kala degan yahay magaantayba ka soo bilow koonaha ugu sheega koonaha ugu dambeeya magaalada dadku wada degan yahay ma jirto magaalada waxaa loo kala degan yahay jifida reer halkaas ay degan tahay reer halkaas ay degan tahay wax guud baa ka dhaxeeya laga yaabaa magaalada qaarkeed ka dhaxeeya anigu gudoomiye adiga tiimkaaga reerkan aan ka dhashay waa reerkan ay duwan ka tahay magaalada Muqdisho daarad baa ka dhashay annagoo ka taxnay haddana weli xamar waanu joognaa oo waa rabnaa oo calankaan u sidnaa oo Jubbaland iyo Puntland iyo Khaatumo iyo magacyaan la baxnayo haddana meel kasta aan magac ka taagnay calanka Soomaaliya isdana meel kasta meel la wadaago la dego iyo meel aan gaar deganahay mid kasta ha noqotay weli ma jiro jilib naga mid ah oo yiri Soomaaliya waan nacnay ama waa ka tagnay ma jiro mana jiri doono insha Allah laakiin hal wax baa maqan Soomaali badan baa nala mid kaliya markaan saaleeyahay هذا العافمات في عينه ضمن قوسن كذا لكن عافمات دار بتشيله عذر يقوم تشيله وحنا بتشيله ضد ضمن بعنا رمله مقدشة كده حيث الصومالي وعاصمة الصومالية وملك الصومالية ووجهه الصومالية مقدشة أداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت كراش قينيسة أداء أنا كم قينيسين كلام أما الله يفرحه أما الله يقوم معه أنا ولكن لو مركز قبل الصومالي أما إلى ذلك أما ذلك ما وعيه ودشم الله بصور نقول كريا بالله ما يهدون هو شوي أنا من مركز عن شوي ولا يسوي شيء وحدي ودشم إيمان كرنا ما يبالها ده هو الشيء صار الإنسانية حوالات دي بركاتك علي وحي النادي صادتك شركة كلها ما لم وبتجستي في اليونيفرسال وحكوا قرن وحاولوا باغيا dadkii lacag ka lumeen ee berigii noocaasah boqolaal qof baa dhinto laga yaabo in lacagtiisa cid aan la garanaynin waxaan sugaynaa Muqdisho inay naadiso guryaha lahaa ee beeraha lahaa ee deganaa inay naadiso la yiraahdo waxaa loo baaqayaa dadkii guri hebel lahaa aseendada halkaa ku taalla ee la barkeedinta yahay guriga sekada ku yaala
في الروما كسر هوجي الدين عاسقية لما بيسوي تاعي هيك هذا الدنيا اللي ينادى أنت سنسوي عنه أنت عند اللي قصده يا دوبي ولا هو الرئي إذا خوش غيثاب دولة صوماليا أنا كنت كوبي لا تنسى أفري لا تنسى بربرة هي ما أنتو رجع روح بدل الله كوني أفري تون ما يريد دولة قمسين هاي هل كان كسر عن الله يوحيتها بل هل إلا بحنا نقدره أبو صومالي والسياسي ربعدا وأبويهن وعبد الله سعيد جري بقر كسر ومكرفون مدنيان يمروين وسلامتي ماشا واتكوكاك تنبي لطاي كستانا نيدي للجومي يلكيدي تنبي مفردنا وحبينو كيف إيدي سنينا قدوميها قبل كبنادس بينو كشو بينا وهي نهبني سووا شقيو هول وناكسن وضبط حمر كشو أروح يوميدي هرور وعداها إلى حين يأكل السبب سو شقينا حمر وكسو شقيي وحمر رانتي كذب إنه واحد قال إن حمر لا يمد للدولة لكن لا يقومن الدين ابن كلمان من صاحب بدل وأقوي شيء ولما أنا والله عقله وان خير ولا ريال وقت بدين ما يو وقت غاير وحان هذا الكلام كسر بنادرية أو قدوميها مدن النقاب خصوصنا يا صوماليا ويبربودي ويكلو فوتي سبحان الله ترى ولالك هذي الوفد عندنا قعدت هذا مري قعدت هذا نهجر وحلين كرما قبل الصومالية وبلك كوفوري وحنا كوفوري الدولة جوبة الصومالية إن أكتر كوبا لسان إن حلقة كوبا لسان إن سوي جلدان إن وفوتو جلدان وحي تبنا أيام إن تراهان والوحي قلبنا صار نقول ما أيام كين سكينا وحلنا عليها نقول وحي حماضي sidaas baa dalku ku kabri karaa annana weydin la shaqayn doonaa insha allah waxaan rabaa wafdiga qiimaha leh oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal maxamed xasan xuseen mungaab inaan si diiran Stockholm waxa ku soo dhaweeyo walaalayaal soo dhawaad ayaan idin leeyahay gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed reer Sweden isla markaana kamid ah howlwadeennada baarlamaanka Soomaaliya waa Faaduma Gariye alle ay ku soo dhawaad mikrofoonka السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرتدى شرفت لك صور مرتدى مالك وضربي هذا هو سوق المدينة أنا مركي بورا وأنت بدو وتطلع صورة نقالة ولا أنا سويدا بانها هذا سويدا أفر سنة وين كم مكان هاي مقدش أنا دقنا بعد حد يشوفها وعشان هبي وضك waxaan u maleynayaa qof xabad iyo ka timid oo meeyka u maleynayaa saayuru bidi kala tirsan ka tagaya ka soo qof badan jeedaya marka ku soo noqda marka aniga baarlamaankana waan kamid waanahay haddana waxaan ahay ganacsato joogta magaalada muqdisho sida dadku aaminsan yihiin qofka degan wax ka sheegi kara maraykanka arkaysaa iyo waddanka Sweden arkaysaa haddii la xisaabo maalinta intaasoo ku nool baa ku dhimatay insan ma oga Soomaaliya hadday habar dariiqa ku gubto meediyaha la soo geliyaa arintaasoo dhan baan ku noolaa qalad waa jira Soomaaliya saxadada sida la sheegaya maaha ani muqdisho deganahay Sweden baan ahay haddana martida kamid ahay marka waxay idin sheegayaan aniga ku soo noqdaan ilaahay waddanka dhaqaalihiina gelinaysa South Africa iyo Kenya iyo Ethiopia waddankiina ku soo celiya
waana dharki joogtay ganacsigina la keensada waxaan idin kugu hambal celinayaa inaad magaalada ku soo dhawaatid mudane adiga iyo guddigaada waxaa mudan sharaf caawa aan rabaa inaad u socdasiin sahro barqadle iyo organizationka la yidhaahdo caawa taako hadalkayga kuma dheeraanayo waxaan rabaa in yar inaan iska sheekeeyo 74 baan u gaarnay badankiina maad aqoonina iswida meelay ku taal Soomaalina waan ku hadlaa waxaan u malaynayaana waxaan uga hadlayaa Soomaaliga wadankayga inuu burbura aad baan aga calool xumaaday laakiin Soomaaliga waa iga dhumin lahaa taas baa in yar nasiib ii noqotay waxaan rajaynayaa caawa su'aalahaada aan ku siin doono inaad nooga jawaabtid waxaan u yeeray Ismaaciil Maxamed Muxyidiin oo ah xildhibaan golaha deegaanka waxaan maanta halkan u imid inaan soo dhaweeyno gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr. Xasan Xuseen Mungaab waxaan filaan aga wadaa jaalid Soomaaliyeed ee dalka Norway guud ahaan gaar ahaan jaalida magaalada Trondheim oo aan bedelo jaalid Trondheim waxaa lagu xusuustaa ama lagu gartaa waa jaalida uu ka yimid gudoomiye Jawaari waa magaalada uu ka yimid Jawaari mudane Xasan Xuseen Mungaab waxaan ku ammaanaynaa waxqabadkii xilliga yaraa uu fadhiyay shaqada waana soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay iga guddoon salaantii aan jaalidii ka keenay sidii hore loo sheegay oo hadal badan aan ku xisho waqtiga aad weli yahay safar baan ku imid sano waxaan u madcelinaa jaaliyadda Sweden soo qaban qaadisay xafladan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii barnaamijka qaybtii ugu dambeysay iyo qaybtii ugu muhiimsanayd oo ahayd qaybtan dhammaanteen wada sugayna iyadoo habeen shaqo ay tahay maanta maalinta shaqo ay tahay caawana ay tahay habeen taariikhi ah xus mudan oo ay reer Sweden xasuusan doonaan waxaan rabaa inaan idin hor keeno gudoomiyihii qabanqaabada xafladan ama barnaamijkan iyo guddiga markaa nala joogay maalmahanba ku soo dhaweeyay magaalada Sweden dalka Sweden magaalada Stockholm iyagoo inagana matalayay ayaan rabaa markaan inay kaalintii ugu dambeysay gabagabadoodii ay barnaamijkoodii qaataan marna kaan ay ku soo dhaweeyaan waliba mudane General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan u yeerayaa gabadha horkacisay guddiga qabanqaabada isla markaana gudoomiyaha ururka Xaawataako waa Zahra Barqalle waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha iyo martidiisa mar labaad waxaan leeyahay ku soo dhawow wadankeena gaar ahaan caasimadeena Stockholm runtii Soomaalida saar waxay sheegi jirtay way yaqaanaan intii la sheegaya waxaan sheegaa Soomaalinimada waxaan sheegaa in la walaaloobo waxaan sheegaa in wadanka wax loo qabto waxaan sheegaa in Soomaaliya isku duuban ee wadanka wax ka qaban karto marka waxaan leeyahay maadaama maanta gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqi magaalada Muqdisho uu nala joogo oo intaanoo Soomaali ah oo ama gobolada noogu dhadhow Stockholm ama
magaalada Stockholm iskaga timid waxaan leeyahay runtii magaalada Muqdisho way noo baahan tahay maadaama gudoomiyihii nala joogo waxaan laga rabaa magaalada waxaan ka qaban lahayn ee qaybtii reer Stockholm ku soo aadi lahayd maanta in halkaan laga sheego waxaan rabaa inaan magaciina ku hadlo gabdhaha waa ku hadli karaa laakiin raggana waxaa u malaynaa badankooda inaan ku hadli karo waa mahadsantihiin marka waxaan rabaa anoo magaciina ku hadlaayo inaan rabno inaan kulligeen intaan isku tagno Muqdisho aan ka shaqeyno waxaan qaban karna aan qabanno waxaan rajaynaa gudoomiyahani dhinacii nooga aadan inuu na dhihi doono ka qabta waxaanan ogahay oon hubaa hadduu ilaahay idmo reer Stockholm inaan ku fiicannahay inaan wax badan qabanno maadaama aan nahay dad badan oo Soomaali ah dad isjecel dad walaala ah dad Soomaalinimada jecel dad martida soo dhawayska aad ugu fiican waxaan rabnaa qaybtiini inaan aniga ballan qaado oo aan bari ku ceeboobin وأكيد كانت نحاول تعرف دمر ككليا قاضنا لكن واحد جرو ضد بدن أما رج بدن أو على شقيه أو كحم عندنا حتى أنت دمر ككليا هذا مركين ده ستحصل علم هذه كلنا إذا مثلا هذا مرة بينا كوسي ديرانا وحربا إنا هالكان وجم هالعليو جدي سيد حوجة أو إبك بدن أو شقة بدني runtii ila isla shaqeynay habeen badan maalmo badan saacado badan waxaan leeyahay waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo duqi magaalada Muqdisho waxaan leeyahay Xasan Maxamed Xuseen soo dhawo wax badan aan ka sugaynaa inaan noo sheegto waxaan rajeynaa جالية الصومالية وضع في السويدن هو حلبان خليف يا مسؤولية كبار السويدش كان فديان دولية دماء قيبها كلا دول برشلة كان فديدو ضياشة سياسيين أخويان كهوين كالليرادة بعض الصحافة فنانين مضى ليالي مرويين وعن ديكو السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب سعودال كان نكون مرينا دور وطن وكيا لقارة يوروب ومن شقو وحونا قيب كيا هيدا دالدا أنو جرنو سيدي أنو هرمر الله من مقدشو عاصمة دالكين هويو annaga oo kaashanayna shacabkeena iyo saaxiibada beesha caalamka dhowr safar oo mino dhala ayaa ka horeeyay socdaalkan kuwa kalena way ka dambeyn doonaan haddii alla yiraahdo maxaa yeelay magaalada Muqdisho si loo soo celiyo heerkeedii maqaamkeedii bilicdeedii waxay u baahan tahay juhdi maxalli ah oo dadka Soomaaliyeed bixiyaan iyo taageero u nasiyo caalamka si aan u gaarno himiladeena qorshaha safarkeenu maaha oo kaliya inaan la kulanno deeq bixiyaasha iyo dawladaha casuumay
waxaa ahmiyad weyn inoo leh inaan qaabilno la tashanno warbixin siino qurba joogta Soomaaliyeed oo ay caasimadooda tahay Muqdisho si aan ugu dhiirigelinno una xasuusino inay leeyihiin magaalo ay ku laaban karaan dib u dhisan karaan isla markaana ay ku noolaan karaan taas oo horumar sameynayso marka laga fiiriyo dhinac kasta waana magaalo madaxda dalkeena oo Muqdisho waxaan idinkaga mahadcelinayaa talooyinkii halkaan aad ka soo jeediseen odayaasha ka soo jeediyeen haweenka ka soo jeediyeen siyaasiyiinta ay ka soo jeediyeen dhammaan si wanaagsan ayaan u dhageystay jawaabana waan idinka sii doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waana waxaan u dalbaday inuu kulanka noqdo heer Soomaali si aan fariimaha kala duwan ee Soomaalida ay qabtoon u dhageystay talooyinka waan idinka mahadcelinayaa bishii February 27 ayay ahayd markii la magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho khudbadii xil wareejinta aan ka jeediyay 4 bisha Maarso waxaan ku faahfaahiyay qorshaha maamulka gobolka ku shaqeyn doona intaan xilka hayo waxaana muhiimsanaa hagaajinta maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan agaasimayaasha waaxaha dawladda hoose ee Muqdisho labo adkaynta ammaanka magaalada Muqdisho saddex hirgelinta mashaariicda horumarinta adeegyada bulshada asaasiga u ah afar xalinta dacwooyinka dhulka iyo hantida la isku haysto ama la kala haysto shan hirgelinta hanaanka dawlad wanaagga qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa wixii aan la imid xafladii xil wareejinta ayaga ayaan ugu muhiimsan howlaha iyo qaabka iyo qorshaha aan ku shaqeynayo waxaan doonayaa marka inahaas inaan mid faahfaahin idinka siiyo insha Allah taala adinkoo ii dul qaadan doono haddii aan khudbada waxa idinku dheeray qodobka koowaad isbedelka maamulka gobolka Banaadir si loo helo isbedel dhinaca maamulka gobolka wuxuu ka mid ahaa in la helo isbedel maamulka gobolka wuxuu ka mid ahaa tilaabooyinkii ugu horeeyay ee maamulka gobolka Banaadir qaado isbedelkaasi wuxuu ahaa mid aad u adag isla markaana xasaasi ah hase yeeshee waxaan annagu u arkaynay inuu lama huraan yahay aanan la shaqayn karin wax badan la qaban karin la'aantiis waxaan isbedel lagu sameeyay dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir ku xigoonadoodii iyo inta badan agaasimayaashii waaxaha dawladda hoose ee Xamar iyadoo loo magacaabay dad xirfad leh aqoonyahan ah aqoonyahan ah xirfad iyo aqoonna u leh shaqada loo igmaday sidoo kale waxaan dib u habeyn lagu sameeyay qaab dhismeedkii maamulka dawladda hoose ee Xamar waxaan xilalkii ka wareejinay gudoomiyaal muddo soo maamulaya degmooyinka gobolka Banaadir kulley wixii ay qaban kareen soo qabtay waliba waqti adag waxaan ku bedelnay dhalinyaro ka soo baxday jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda kuwaas oo diyaar u ahaa inay dadkooda iyo dalkooda si cadaalad ah ugu gudbiyaan waxqabad cadaalad ku salaysan dhalinyaradaasi waxaan ku shardinay in ay heer jaamici noqdaan si looga guuro nidaamkii hore ee ku dhisnaa yaa mushkilad ah oo qor haysto misna lagu xalliyaa xilka degmada ama nin jeclaysi loogu dhiibo si loogu guuro in qofka lagu doorto aqoontiisa xirfadiisa shaqo iyo kartidiisa lana dhiirigeliyo waxbarashada dhalinyaradaas aan maamulka degmooyinka gobolka Banaadir u dhiibnay waxaan ku shardiyay dhowr shardi waxa ugu muhiimsanaa kow inay jaamiciyiin yihiin xilligan Muqdisho ma maamulayo mana jiro hal gudoomiye ku xigaan walaa hal gudoomiye walaa hal agaasimo waaxid oo aan haysanin bajalar aan haysanin jaamacadda
qodobka labaad waxaan ku shartay inay yihiin rag iyo dumar dhalinyaro ah oo boodi karo oo caaboon qodobka saddexaad si ay muqdisho ugu soo celiyaan soomaalina ay ugu soo celiyaan inay yihiin dhalinyaro qalbigooda saafi yahay oo dagaaladii Soomaaliya ka dhacay hadduu ahaay mid qabiil ama mid shahaada diimeed loo geliyaba inayna ka qayb gelin weligood ay ugu jii Soomaaliya xabad ku leeyihiin dhalinyaradaas markaan keenay waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo away kaadirkii dowladda hoose ee khibradda u lahaa howlaha dowladda hoose ama maamulka degmooyinka waxaan laga tegin kaadirkii hore ee dowladda hoose iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan sameynay xafiis u gaar ah oo ay talooyinka ka soo saaraan sidoo kale waxaan wax walba ku lamaaninay la taliyaal ka mid ah kaadirkii hore ee cilmi iyo waay aragnimo u leh shaqada ay qabanayso waaxdaasi si aysan nooga khasaarin waay aragnimada ay leeyihiin dadkaasi kaadirkaas markaan idin sheegayo ma ahan kaadirkii xilliga mushkilada degmooyinka haysta waxaan ka hadlayaa kaadirkii bilisamaadkii ka baxay dugsidii farsamadii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed soo shaqeeyay sida mawlid maleela oo kale tilaabooyinkaasi waxaa ka dhashay in agaasimayaasha waaxaha gobolka kuwa dowladda hoose gudoomiyaasha degmooyinka ku-xigeenadooda iyo kuwa waaxaha degmooyinka ay wada jaamiciyiin yihiin maanta oo weliba ay yihiin kuwa caaboon ujeedooyinka aan u qaadanay siyaasadan ah in aqoonta hogaamiso Muqdisho waxaa ka mid ah kow inaan dadka Soomaaliyeed ku dhiirigelino waxbarashada isla markaana aan tusino in qof kasta oo waxbartaa uu mudan yahay inuu hogaamiyo bulshada labo in dhalinyaradu ay yihiin xoogga ugu weyn wadanka ummad kasta waxaa horumariya dhalinyaradeeda si khaldan loogu adeegsan dhalinyarada waa inaan uga faa'iideysanaa wadada wanaagsan fursadna aan siinaa waxaad dareemi kartaa xilligan mushkilada Soomaaliya ka jirta gaar ahaan argagixisada waxay adeegsadaan dhalinyaro markaan faqriga iyo jahliga iyo shaqo la'aantana waa qayb ka mid ah inay dhalinyartaas u jeestaan dhinacyada aan wanaagsaneyn haddii dhalinyarta wax barata marka jaanis loo siiyo inay ayagu shaqada la wareegaan oo ay shaqeeyaan xafiisyada waxay qayb muhiim ka tahay in dhalinyarta xagga ay ku qalbi lahaayeen ay ayagana isku wajahmaan oo u jeesadaan dhinaca waxbarashada waxaan u dhigna dhalinyaro rumaysan waxay rumayn karaan dhalinyaradaasi himilooyinka uu hiigsanayo maamulka gobolka Banaadir oo ah in Muqdisho soo ceshato maqaamkeedii Soomaalina ay soo laabato maamulka gobolka Banaadir wuxuu hiigsanayaa dhammaadka 2015ka bisha November in bulshaweynta Soomaaliyeed ay ku dhaqan Muqdisho u dareeraan doorashooyinkii golayaasha deegaanka si looga gudbo duq magaalo oo la soo magacaabo iyo gudoomiye degmo oo la soo magacaabo dhalinyarada waxaan u aragnaa cidda hiigsigaasi ka dhabayn karta maadaama aysan lahaynin daro gaar ahaaneed ayna u ooman yihiin in ay wadankooda horumariyaan wax u qabtaan maamulkeena dhalinyarada u badan wuxuu ku guuleystay in ay soo celiyaan ama inuu soo celiyo kalsoonidii ka dhaxaysa shacabka iyo dawladda maadaama ay markii horeba ka yimaadeen bulshada waxay horseed u noqdeen hanaan wada shaqayn oo dhex mara laamaha ammaanka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir wada shaqayntaasi ayaa sabab u noqon karta in laga guuleysto kuwa dhibaatada ku haya bulshada Soomaaliyeed oo ay al-shabaab ugu horeeyaan hadda kadibna waxaa fursad yeelan doono kuwa wax barta hadii la yiraahdo magaalada Muqdisho waa ogtiin maraaxil fara badan ay soo martay xilli ay kala qaybsaneen ee khad cagaaran ay wiilay way soo martay ka gudubtay xilli al-shabaab inta badan oo ka talinay dawladda dhaxana 130 ay ka talinaysay soo martay way ka gudubtay xilli madaafiic isku weedaarsanaa way ka gudubtay magaalada Muqdisho hadda 100% waxa ka taliyo dawladda Soomaaliya waxaa gacanta ku haya ciidamada nabadgelyada gobolka Banaadir booliiska gobolka iyo nabadgelyada gobolka Banaadir
ka helayo talisyadooda guud iyo booliiska amisom oo saaxiibada afrikaanka ay kaashanayaan markaan isu socodka magaalada waxaad ka warqabtiin goortii la doono in la soco kara xamar 6 saac habeenimo iyo wadooyinka qaarkood dukaamakay furan yihiin magaalada muqdishoona xilligan aynan ka jirin amni darro guud amba askari dariiqa taagan ee dadka dhacayo amba qabaa'il isdilaayo ama isbaar meel gees guddoomiyada ku taalo amba qabqablaa dagaal u taalo waxa ugu weyn ee ka dhaco waa falalkaas argagixiso oo ayagana filim mataqaanaa barnaamij caalami ah dunida oo dhan dhibaato ku haya dagaalna lagula jiro argagixisadu marka waxay duulaan ku yihiin nabadda iyo xasiloonida caalamka guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya waxay dirayaan marka dadka waxgalka u ah bulshada waxay isku qarxinayaan goobaha dadweynaha ku badan yahay waxay qaraxyo u dhigayaan hooyooyinka nadaafadda ka shaqeynaya waxay diidan yihiin dowladnimada Soomaaliya iyo horumarka dalka waxaan ka xunnahay in ay dileen mas'uuliyiin ku jirtay ay kamid ahaayeen xildhibaano saraakiil iyo siyaasiyiin sidoo kale waxay ugaarsanayaan wariyaasha dhammaan ficiladaasi waa kuwo argagixiso sida ay rabaan uma wada fulaan ee ciidamada ammaanka qaranka ayaa mar walba ka hortaga wax badan oo falalkoodana fashiliya waxaad ogtihiin markaan kooxaha argagixisada ah ayagu waa barnaamij ku dagaalamaya ideolojiyad nin la soo programiyay oo asaga aaminsan inuu dhinto oo markuu soo dhaqaaqaba dagaalkiisu uu yahay inuu marka hore asaga dhinto halkaas kalada guul ka raadinayo way waxa dagaalamayo wax 190 markii oo laga hortago oo intaas marwalba la soo qabto ayay had iyo laba u fulayaan argagixisada oo ka dilaacda dal sidii Soomaaliya oo kala oo dawladnimadooda ay burburtay oo hadda kumeel gaar ka baxayna inaan habeen iyo maalin lagu dhameystiri karin waa dareemi kartaa laakiin dadaal adag ayaa lagu wadaa mana ugaarsadaan waxayna ugaarsadaan dadka ugu wanaagsan dadka kaliya ma ugaarsadaan dawladda ardayda wax baratay dilayaan haddaan idin xasuusiyo 2009 wixii ka dhacay hotel Sham oo kale inuu waaxid ka tagay wadamada Yurub mid kamid ah oo ina sharaar qaatay oo hotelki soo degay inuu laayay ardaydii jaamacadda Banaadir ka baxeen ee caafimaadka ka baxeen dhaqaatiirta ahaayeen barofesoorradii xilligaas ku mataqaanaa waxbarashada dawladdu u hayay yani wasiirkii waxbarashada yani waayeel wasiirkii tacliim caali cadow wasiiradii caafimaadka qamar wasiirkii isboortiska yani waxa dareemaysaa in dhammaan waalidiintii xafladda ka qayb galaysay iyo hooyooyinkii iyo aabayaashii iyo dhalinyartii 12 sano isku dhiganayeen 6 sano caafimaad baranayeen ee marka oo shaqada bilaabi lahayd ayuu isku qarxiyay intuu Yurub ka tago rajana raadinaya Muqdisho ka raadinaya caruurtii wax baratay iyo hooyooyinkooda lahaynaya waxa laga dagaalamayo Muqdisho midrada ka wado waa kuwaas waana barnaamij caalami ah argagixisada dunida ka dilaacday ma wax kale Muqdisho ku gaar ah waxaan ilaahay kala jeenayaa adduunka dhan in laga tirtiro dhanka kale waxaan maqlaysay maalmihii ugu dambeeyay Ramadaankii oo kale inaad maqasheen Muqdisho dhowr xildhibaan lagu dilay ay ugu muhiimsaneed xildhibaanadii qaran yani fanaanadii qaran Saada Cali Warsame ilaahay uu naxariisto waxaad dareemaysaa markaan saado kale marka ninkii dilayo oo maxaan ku leeyahay inuu nin qariban oo argagixiso u yahay way ku cadahay waxaad maqlaysaa markaan inay markay wax dilaan waaya gabdhihii nadaafadda magaalada nadiifinayay oo qashinka qaadayay ayay qashinka u badan u dhaxgashay markaan taas camal marka waa koox argagixisa oo khawaarij ah oo dilka bini'aadamka raabiyo ku qabto baalaha ay ahliina cudur raabiyo oo ku dhaco inuu ku qaniino la wada markaan eeyga markuu ku dhaco cudurka raabiyada ah wuxuu baahay wuxuu qaniino ilaa wax ka qaniino ma joogayo hadduu qaniinina uu dhimana asaga uu dhimana qofkina uu dilaa marka nimana intuu isku soo programiyaan qarax isku soo ridaan isku soo xiraan waxa ay dilaan oo soo baxa hadduu xildhibaan waayo hadduu wasiir waayo hadduu mas'uul waayo gabdhihii nadaafadda isku qarxina ardaydu isku qarxina علشان isaga laazim uu dhinto raba waxa laga yaabaa inaad isweydiisay ramadaanka maxaa dhowr kiis u dhacay ayaga waxay aaminsan yihiin ummadda markay cibaado u jeesato oo ramadaanka shayaadiinta la xiray sida xadiis loo sheegto oo albaabada jannada la furaayo ayaga waxay aaminsan yihiin albaabada naarta la xirayo ayaga waxay aaminsan yihiin ramadaanka inay isqarxiyaan ee dhintaan jannad galaysiin aaminsan marka ramadaanka ayaga dhimashada raba marka
wax badan ay soo rakibayo oo min isku soo xiraay calaashaasay u dhintaan halkaan ay qarac isku halkaan ay ku qarxayaan isku qarxayaan waxaad maqlaysaa markaan nimanku inay yihiin niman ayaga markaa ookiyaal cagaaran oo janno ku qoran inta loo geliyey dabadeed inay dhintaan rabaan waaye marka bacdama ay ramadaanka inay dhintaan ayaga go'aansadeen laazim waa inay dhintaan kee qaraciya ku xidhay markaan wax kasta ayay arkaan waa isku qarxinayaan mararka qaarkood meel mas-uul joogin oo xaafid caadi isku qarxinayaan marka ayagaa aaminsan sidaas qaraxi ayaa lagu soo akhriyey raabiyaa kula dhacay waa inay dhintaan dadkii salfanayaan markaan wax badanna waa laga hortagaa laakiin mar hadduu qarax isku soo rakibo xataa mararka qaar waxaa maqlaysaan booliiskii oo qabtay baabuur aan qarxin oo la qabtay oo kadib qarxayo kii isqarxinaba oo la qabtay laakiin wuu qarxayaa waxaas marka waa barnaamij ideolojiya ku dhisan wuxuunu u baahan yahay dadaal dheer iyo iskaashi soomaaliyeed iyo ina ciidamadeena sirdoonka aad u dhisano maaha wax habinimaa lagu dhamay karo laakiin magaalada muqdisho guud ahaan waxaa ka jira ammaan la isku hadlay karo guulaha dhinaca ammaanka laga gaaro waxaa ka mid ah isfaham iyo wada shaqayn buuxda oo u dhex martay shacabka magaalada hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmooyinka shacabka muqdisho waxay ku dhiiradeen in ay soo sheegaan kuwa dhagarqabayaasha ah ee doonaya inay carruurtooda iyo waayeelkooda dilaan kuna dhex dhuuntaan shacabka waxaa suurto gashay in ciidamada ammaanka gobolka ay gacanta ku dhigeen tiro ka mid ah al-shabaab oo ay shacabku macluumaadkooda soo gudbiyeen ciidamada ammaanka gobolka ayaa soo qabtay dad aad u fara badan oo saxaafadda ka aragteen ayagoo la xukumay lana tooganayo waxaa tusaale u ahaa nimankii argagixisadii dishay marxuumad nafiso cusmaan cali oo ahayd gabar soomaaliyeed oo wax baratay gacanta ayaa lagu soo dhigay maxkamadda ciidamada la saaray waa u mahadcelinayaa gabadhii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gaashaale sare tuuriyeeda soo hadal qaaday tiirka ayagana lagu xiray way dhadhamiyeen wada shaqayntaasi waxay ka dhalatay dadaalka uu sameeyey maamulka gobolka banaadir laakiin aan idiin sharaxo ciidamadaas yacni dhallinyaradii gobolka aan u dhiibnay arrintaas waxaan rabaa inaan si fiican u sharaxo dhallinyaradii aan degmooyinka u dhiibnay waxay ku guulaysteen inay heleen kalsoonidii shacabka ay heleen waxay heleen wada shaqayntii shacabka waxaa marka isku xirmay laamihii ammaanka gobolka banaadir waa booliiska gobolka iyo nabad sugidda gobolka markaan ka hadlayno ciidamada ammaanka gobolka banaadir ma ahan ciidamo gaar ah oo gobolka banaadir leeyahay ma ahan oo shaqada qabanayaan waxaad ogtihiin booliiskeenna wuxuu leeyahay heer qaran iyo heer gobol nabad sugidda waxay leedahay heer qaran iyo heer gobol waa nabad sugidda gobolka iyo booliiskii gobolka oo kaashanaya talisidooda guud wasaaraddii amniga qaranka guddoomiyihii gobolka banaadir dhaqaaqaas guud marka degmooyinkii shacabka deganayna waxaa laga helay wada shaqayn shacabka marka wuxuu ku dhiiraday inuu farta ku fiiqa argagixisadii waa markii ugu horreysa gacanta markaa lagu soo dhigo maxkamadda oo qadimaskiinkana la geeyo arrintaasoo ammaanka wax weyn magaalada muqdisho ka dartay ayagana ay ku noqotay walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaab alakbar lacallahum yarjicuun intaan aakhire ilaahay ku cadaabin falalkay geysanayaan tiirka iskool buliisiyaa lagu cadaabay oo ayagoo daya intaa lagu kala aqoonta looga jaray magaalada muqdisho xilliga laga heli maayo isbaaro u taalo guddoomiye degmo amba qabqabla toona waxyaabaha xilligan ku faani karnay ka mid tahay odayaasha dhahayeen oo xildhibaanada ay ka mid ahaayeen 2012 ka soo tegay 2012 2013 2014 ka dambeeyay aan hadda idin cadeeyo xamarana marqaati ah dhammaan degmooyinka gobolka banaadir hal isbaaro oo guddoomiye degmo taal ma jirto kow hal isbaaro oo qabqabla dagaal u taala ma jirto ciidamo ku labisan dareeska ciidamada oo dadka waxyeelay haayana ma jiraan 6 bil la soo dhaafay websaydyada hadda lagu noqdo car ha laga keeno askariya wax dilay iyo askara wax laaysiya askara magaalada ugu joogda dadku laayso waa laga soo gudbay halka magaalada laga soo galo
iyo halka looga baxo waxaa ka shaqaynaya boonada dowladda hoose ee xamar iyo boonada wasaaradda maaliyadda oo canshuurada ee beriga qaadanayso isbaaro kale oo taale magaalada muqdisho ma jirto waxa uu weyn oo maanta muqdisho ka jiro dalka qaybo kalena ka jiraan ilaahayna aan ka rajeynaa guud ahaanba dalka ilaahay ka tirtiro waa shabaab argagixiso ah oo bulshada ku dhex dhuumaalaysanayo oo marmarka qaar falal argagixisa geysanayo laakiin dhibaatooyinka kale oo dhan muqdisho way ka soo gudubtay tusaalahan masalan haddii aad gabadh qabtaan muqdisho markii guri u dhiso maaga xaafad ku yaallo ruux muwaadin soomaaliyeed ah waxaa laga yaabaa inaad maqli jirteen in la yidhaahdo guddoomiye degmo ama isbaara mid wato darees ciidan wato u yidhaahdo lacag isii $1,000 $200 $300 isii sheekadaas hadda way dhammaatay qofkii doonaya inuu guri ka dhisto muqdisho wuxuu weydiisanayaa dowladda hoose ee xamar waaxda dhulka fasaxee dhismiyo weydiisanaa tariifo aan anaga saxiixay oo $500,000 oo guri weyn $100 yahay ayuu halkaas ka soo qaadanaya warqadii fasaxi gurigiisii oo imaana wuu dhisanayaa cid la hadli karto ama cid hor istaagi kartana ma jirto markaan arrimahaas oo dhan markaan muqdisho xilligan 2014ka way ka soo gudubtay askara wax qalayso gudoomiye degmo isbaar u taala degmooyinka kala qoqoban oo reer loo haystaa reer loo meesho muqdisho dhamaantood 17 degmo waxa xukuumadda gudoomiyaasha dhalinyarta gibigeena aniga ka taliyo gudoomiyaheeda ah dawladda dhaxayna fadhi u tahay oo kor ka maamulaysa markaan wax kala qoqoban iyo xaafado kala qoqoban oo qabiil loo degay ma jirta 2 malyan iyo barka muqdisho ku nool waa Soomaali weyn waana isu soo naqadaysa inta soo taabsan ku saarayaan waxaa jira biyahan oo waliba meel fiican marayo mashruuc lagu magacaabo mashruuca xasilinta muqdisho ani markii xilka la ii magacaabay waxaan dadaal ku bixiyay ammaanka muqdisho sida wax looga qaban lahaa bacdama ammaanku uu yahay furaha nolosha waxaan diyaarinay mashruuc la yiraahdo mashruuca xasilinta gobolka banaadir bacdama muqdisho haday xasilisho ay ka dhigan tahay Soomaaliya oo xasishay qayb ahaan ama guud ahaan Soomaalina markaa isku soo noqon karto ammaankana furaha nolosha uu yahay Soomaali weyn ay wada degan tahay waxaan waa in la helaa mashruuc gaar ah oo lagu magacaabo mashruuca xasilinta muqdisho mashruucaas oo hadaan soo koobo macnihiisu yahay in la helo ugu yaraan ciidan booliiska gobolka banaadir oo ugu yaraan gaarayo 3,000 oo booliis ah hubeysan waaxaha iyo degmooyinka gobolka banaadir isku loo qaybiyo iyo in la helo 1,000 askari ugu yaraan oo dhar cad ah oo sirdoon ah dhar cad ah oo aan hubeysnayn oo gudaha inta shacabku u gala bulshada يعني لا شقي مامل كدقموي كي برنامج كدرسين ده سمينا عدو كشباب كي لقيا بينو سوق قرية برشدة قعنتو كصادمه وعرفنا مرة وين نقارنه هدي مثلا سوق هذا حديثة نك عروضة هستو يا السجن إن الشباب كتاجرسن أما الشباب كأ ولكن صغرنا يو أنا كنا منكو أديك يا دكان كو حاجة إنه نبسكون نقول أيارنا المرة وقارن arrintaasi waxaan la wadaagay wasaaradda amniga qaranka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaashaandhigga talisada ciidamada nabad sugidda iyo taliska booliiska dokumenti dhammaystiran ayaanu gudbinay oo horyaala wasaaradda amniga qaranka iyo golaha wasiirada waxaan aad ugu rajaynahay in maaragtay dhawaan mashruucaas uu hirgeli doono jaaliska muqdisho haysata xilligan waxaa ka mid ah guud ahaan qaranka uu haysto in wasiirka amniga qaranka loo magacaabay generaal ka soo shaqeeyay nabad sugidda gobolka banaadir gudoomiye ka ahaa oo asaga xidiisa aqoon u leh yani muqdisho iyo qaabka loola dagaalamayo argagixisada aqoon gaar u leh waya waxa loo dhiibay amniga qaranka taas laftirkeeda annaga si gaar ah waxay noo tahay jaanis waxaana naga dhaxayso wada shaqayn buuxdo oo lagu sugayo ammaanka sidoo kale waxaan isku dubarinay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culamaa diinka dhalinyarada ururada bulshada haweenka iyo fanaaniinta si wacyigelin loogu sameeyo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir xitaa waxaan wax ka bedelnay hadaad media fiirsataan heesihii hore ee fanaaniinta ay soo bandhigi jireen hebela fiican hebelow la dhihi jiray anigu waxaan waxa iska joojiyay heesaha xilligan waxaa loo baahan yahay يعني فن أو فرين جدريو أو ظاهرة جرت كجوابيو وحنا إذا وعدنا كميسان
heeso ka shaqaynayo wada shaqaynta bulshada iyo booliiska gobolka nabadsuuda gobolka heeso ka sheekeynaya cadowga argagixisada iyo dhibaatada ku haya bulshada iyo sidoo dadka waxgalka iyo barnaamijyada oo laynayo heeso ka sheekeynayo midnimada iyo Muqdisho inay tahay caasimadda Soomaaliyeed laga maarmaan ay tahay in Soomaali isu soo noqoto Soomaalidu wada dhisatay ay isu soo wada laabato dhammaan gobolada Waaberi iyo Shamsuddin iyo dhammaan horseed Gibir hadda heeso ay ku heesayaan media ka fiiriya dhammaan waxay waxyoonayaan ee ka sheekeynayaan waa heeso gudanayo macaan ku dheelahay message dirayo oo inahaas ka sheekeynayo bulshada lagu wacyi gelinayo waxaan munga macna sameeyay sanad aan sheegay maanta laakiin waana warkiina oo bulshada wax u tahay waxaan dhiirigelinay isdhexgalka bulshada magaalada waxaan muuqanaya jawi nabadeed tusaale ahaan talada daljirka daahsoon waxaa maalin kasta ay bulshada ku soo bandhigtaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyadoo iskood isku soo abaabulay waxaa soconaya yani tartamo ciyaareed iyo yani dhacdooyin kale oo aad u wanaagsan dhammaantood waxay muujinayaan nabadda ka jirta magaalada Muqdisho waxaan dib u howlgelinay ciidamadii ilaalada deegaanka xamar waa minashibiyad way shaqaynaysaa si loo ilaaliyo nadaafadda caafimaadka bulshada shuruucda dawladda hoose iyo ka hortagga boobka dhulka cadowga argagixisada guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa laga xuriyay dhowr sano ka hor waa 2011 bishii Agoosto ayaa magaalada Muqdisho gibigeeda al-shabaab laga xuriyay si aad la socotaan laakiin haraadi yar oo bulshada ku dhex gabanaya ayaa jira arrintaasi waxa ay u baahan tahay ciidan dhalcad ah oo haddii la kuro yahay loo haddana shaqaynayo inta dhiman loo diyaari doonaa in bulshada isku xiran iyo adigoo taageertaan waa laga guulaysan doonaa aniga waxaan ku tilmaamay qolooyinka argagixisada ah waxaan ku tilmaamay bacdamaa laga xoreeyay magaalada bulshada isku dhex qarinaya inna shareeray soo qaateen jilbaabay soo qaateen qaarkood xataa garbasaarada way qaateen waxa way marka waxaan ku tilmaamay boodo iyo injir boodada iyo injirkaas boodada injirta yaa arki karo ninkay cunaan arki karo markay kuleetiga meel daranay karaan markaan shabaab magdaq waa laga xureeyay Muqdisho waa laga xureeyay gobolada dalka intooda badan waa meelihii ugu dambeysay farada laga sii bixin waayo waa la socodin laakiin bacdama gobolada dalka laga xureeyay Muqdisho ay tahay magaalo weyn oo Soomaali oo dhan ay ku wada nooshahay dadka dhan aan is wada aqoonin haraadi fara ku tirsan markay bulshada ku dhaxdo maaleysanayo waxa arki kara markaan qoyska iyo guriga ay ku dhacayaan maxaan ku dheeraa ay ku nool yihiin la arki karaa xaafadda iyo suuqa ay ka shaqeynayaan la arki karaa iskuulka oo inuu dhigto isku dayayo kabar ka dhigana la arki karaa bulshada marka waxaan u abaabulnay inay injirta iyo dalqaha iyo boodada iska soo saaraan seen ay hoos u cunay markay cunitaanka waa inay isqarcinayaan marka bulshadii hadda way abaabulan tahay waa iska soo saaro hayaan maalin kastana waxaa la soo qabtaa argagixiso ay bulshada farta ku fiiqday markaan waxaa wada shaqayn buuxda ka dhaxaysa wasaaradda amniga qaranka talisadii booliska Soomaaliyeed hoggaanka nabad sugidda qaranka kuwa gobolka Banaadir maamulka gobolka degmooyinka waxaa telefishinada ka aragtaan gudoomiye degmo taliye saldhig iyo taliye nabad sugiddi oo habeenkii degmada gudaheedii wada wareegayo jacla sameeynaya roonto ku dhax sameeynaya markaan waxaa jira markaan arrimaha soo idil marka waxaa looga hortagayaa falka argagixisada 90% waa laga hortagaa ama 99 laakiin ayaga halka ay sameeyaan midiyahana wuu qorayaa adduunkana wuu buuninayaa si loo yiraahdo Soomaaliya nabad ma ahan ama gaar ahaan caasimadooda nabad ma ahan laakiin waxaan idin cadeynayaa in ammaanka Muqdisho xilligan uu yahay mid la isku haleey karo inta dhimanna waxay u baahan tahay taageeradiina anaguna dadaalana ugu fiirsanaynaa dhanka mashaariicda gobolka Banaadir markaan idin kala hadlo waxaa gobolka ka soconaya mashaariic dhowr mashruuc oo qaarkood bilowday dhawaan qaarna ay hore u socdeen meeshaas markaan leeyahay qaar hore u socdeen waxaan rabaa in halkiina ka cadeeyo aniga 4 Maarso markaan xilka la wareegay kama bilaabin meel eber kama bilaabin waxaan dhaxlay maamul laga soo shaqeeyay oo maamulkii horeeyay saaxiibka tarsan uu hogaaminayay meel wanaagsan oo wax gaarsiiyay
meesha wax gaarsiiyay ayaan wax ka bilaabay marka mashaariic hore u socotayna way jirtay oo aan dhamaystirnay kuwa aan hadda bilownana way jirtay markaan meel eber maana ka bilaabin jaanis ayaan haysanay mashaariicdaas markaan waxaa fulinaya dowlado aan saaxiibo nahay iyo hay'ado caalami ah halka qaarna ay yihiin kuwa ay fulinayaan maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxaad ogtahay magaalada Muqdisho in inta badan laamiyadii magaalada Muqdisho la dayactiray oo nalal la geliyay haddii laga reebo wadooyinka oo wadnaha iyo sodonka iyo warshadaha oo wadnaha dalabtirkeeda mashruuceeda aan u helno dowladda Turkiga ay noo maaragtay dhisi doonto laamiyadaasna 99 ama intoodaba waxaa noo dayactiray oo noo hagaajiyay nalalkana loo geliyay dowladda Turkiga oo ra'iisul wasaaraha hadda madaxweynaha u noqday Recep Tayyip Erdogan waxaan rabaa marka intaasoo isbitaalna magaalada Muqdisho waa la dayactiray oo ugu horeeyay isbitaalkii Digfeere oo waliba la qalabeeyay oo min isbitaal oo min nawcihi bariga Afrika ku yaala laga dhigo hadda kadib xataa madax markay jirataan dibadda loo qaadaynin oo Digfeere lagu daaweeyo arrintaas waxaa noo sameeyay dowladda Turkiga ayaa iyadana noo dayactirtay oo dib waliba dhistay dayactir maane dib u dhistay qalab casri ah keentay mar dhowna xariga ayaa laga jaraa hadii Ilaahay yiraahdo uu dhameystiray waxaad ogtihiin magaalada Muqdisho iskuulaadkii inta badan waa la dayactiray waa la dib loo dhisay way shaqeynayaan barnaamijkii go to school ayaa shaqeynaya ardaydii waxay u dareereen waxbarashadii waxay u dareereen maxaan ku leeyahay iskuuladii jaamacadihii ayay u dareereen haddana waxaa socda barnaamijkii dib loogu soo howlgelinayo oo dib loo dhisayo jaamacadii weyneed ee ummadda Soomaaliyeed waxaa la dayactiray oo dhammaan dib loo howlgeliyay xarumihii degmooyinka gobolka Banaadir iyo waaxihii gibigood ama 99 dib ayaa loo dhisay wixii yani cayntana waa la dayactiray haddeertaana si rasmi ayaa loogu shaqeeyaa gobolka Banaadir iskuulaadkii iyo xarumihii maxaan ku leeyahay isheega caafimaadka isbitaalka ugu dambeeyay oo hadda inta jooga la dagax dhigay waa isbitaalkii Laasareti aad taqaaneen degmada Cabdulcasiis asagana waa la dagax dhigo shaqada ka socota waxyaabaha arrimahaasna waxa ugu badan shaqooyinkaas dowladaha Turkiga ayaa number 1 ah imaaraadka waa dadaalaysaa shaqayaysaa haddii la guuray wadamadan reer Yurubna ayagana dadaal way wadaan hay'adaha USA haddii la guuray ayonta iyo maxaan ku leeyahay UN Habitat dhammaan way shaqeynayaan walaakiin number 1 caasimadda Soomaaliya Muqdisho cidda wax la taaban karo u qabatay waxaan dhigi karnaa waa dowladda Turkiga oo madaxweynaha marka uu noqday Recep Tayyip Erdogan waxaan rabnaa inaan halkaan hortiina markaan hambali u diro guusha u gaaray walaalkay Alakh Recep Tayyip Erdogan oo daraad u guuleysay madaxweynimada Turkiga dhinaca kale waxaad ogtihiin waxaa socda iyadana xafiiskii midnimada Soomaaliyeed astaanta u ahaa oo 60kii markii Soomaaliya gobonimada ay qaadatay calankii gobonimada laga taagay official governor oo calankii midnimada laga taagay labada gobol ee waqooyi iyo koonfur markay midoobeen haddii la guuray xafiiskii calankii gumeysana dhulka la dhigay official governor hadda tan dayactira ku socday shaqo wanaagsan 23 sano ayuu burbursanaa gudoomiyaha gobol kasto yimaadana hay'adihii dhisana waxay dhigi jireen mashruucaaga soo qadimo annaga ku dhisayno al-wucuud al-kaadiba ballanqaadihii beenta ayuu iska sugi jiray sidaas oo xafiiskii markaan 20 sano ku burbursanaay marka hadii xafiiskaaga ma adisan dalkana waxaad ka qaban kartaa ma jiraan markaan xafiiskii waxaan ku dhisoweynaa mashruuc la yiraahdo dalkaaga dhiso waxaan maalgelinayo dowladda hoose ee Muqdisho oo kaashanaysa shacabkeeda hal hay'ad oo qarash ku baxaysa ma jirto waxaana ku baxaya lacag gaarayso 1,700,000 oo $1 ayaa ku baxaya lacagtaas waxa laga rabaa dowladda hoose ee Muqdisho oo kaashanaysa shacabkeeda oo adigu aad kamid tihiin official governor kaliya maaha waxyaabaha aan doonayn inaan dhisno waxaan rabnaa inaan in badan isku tashanno shacabkeena ku tashanno
annaga aan wax qabsano cidii markaas saaxiibada beesha caalamkana taageeraysana aan gacmo waan ka faa'iidaysanaynaa laakiin mar rabna inaan taa gacmaha u hoorsano aan u fadhina ayaga ayna yidhaahdaan mashruuc faano la farakama qodnoo ma dhammaadaa soo wareegi inta gey nairobi gey halkaan gey ku celi ka bixi muddada waaba kaa dhammaayadoo waxba qabanin marka aniga waxaan ugu talagalay inaan shacabka la abaabulo shirkadaha ganacsiga ganacsatada ilaahay dhaqaalaha siiye diyaasbarada official governor markaa dhammeeyana waxaan rabaa inaan xirooyinka gaadiidka iyo dhulbixinta xamar inaan dib u dhis ku samayno inaan gaarna kama dambays inaan jidadka annaga aan dhisano isbitaalladeena aan dhisano iskuulladeena aan dayactano arrinta oo ugu kale afaraad murnada dhulka meesha ay sarta ka weynto cawada laga dhawaajiyey aniguna aan jeclaa inaan warkeeda aan maqlo iyo wax laga qabo sidaad la socotaan magaalada muqdisho waxaa ka jiray dhibaatooyin xagga dhulka ah iyo isqaqabsi fara badan kiisasku ugu badan ee maxkamada horyaalana waxay ahaayeen dhul sidaas daraadteed aniga markii aan xilka doonanayay istiraatiijiye ayay ii ahayd bal xamar inay ka xorowdo warka dhahayda hantiyaa lagu kala haystaa dadow sidaas daraaddeed isla markii aan xilkaa la wareegay waxaan sameeyey guddi la yidhaahdo guddiga dacwooyinka dhulka iyo hantida la kala haysto ama la isku haysto guddigaas waxaan guddoomiye ugu dhignay nin mutacalim ah oo shariica wal qaanuun ka soo baxay oo sheekh culimada aan guddoomiyaha ugu dhignay waxaana xubno uga dhignay dad xirfad u leh aqoonta dhulka oo injineer ah oo aan aad ugu kalsoonay cadaaladooda aniguna gadaalan ka taagnaayo waa la shaqeynaya guddigaas ayaa shaqo bilaabay muddadii koobneed aan xilka haynay guddigaasi waxay ku guulaysteen inay soo gebagabeeyaan kiisas fara badan oo dhul bannaan oo la isku haystay ama hanti maguurtaha guryo la isku haystay inay go'aan ka gaaraan annagana waxaa noo suurto gashay annagoo kaashanayna dowladdeena dhexe ciidamadeena ammaanka shacabkeenna in aan fulinno fadliga ilaahay ka sugo annagoo kaashana dadkeenna waa la fuliyey waa ka badan yihiin markaan 6 bilood intaan hadda xilka hayay markaan 3 bilood ugu horeysa dabcan howlaha maamulka isbedelkan ku mashquulsanaynay markii aan ku dhawaaqay muddo 3 bilood gudahooda hantida xamar la kala haysto waan ku gabagabeynaya weli bilaa ii dhiman 2 bilaa ii dhamaata kaliya waxaan u malaynayaa wax badan 40 guri way ka badan yihiin waxa yacni barnaamijkooda oo gabagaboobay oo la isku celiyay waa laga yaabaa inaad miidiyaha 1 iyo 2 iyo 3 aad ka aragteen laakiin miidiyaha kuwa la geeyayo waa kuwa xaniya taabadka ah oo firdidig dheer jilba carays loo soo maray laakiin waxaa jiraan hanti fara badan oo la isku celiyay kiisas fara badan oo hanti la kala haystay ama la isku haystay oo la xaliyay oo dadkii lagu kala saaray laakiin aan miidiya laga sii daynaa jiraan oo si caadi normal isaga dhamaaday qaarna miidiyaha waad ka dhagaysateen marka uu soo noqdo socdaal nabadoon socdaal oo yiri abukar socdaal guryaha bal laga celi guryaha waa bacij anigu waxaan aaminsanahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool oo aaminsan yahay Muqdisho inay tahay caasimadda Soomaaliya Soomaaliyana ay wada leedahay mar haddii caasimadda Soomaaliya tahay markaan waxyaabaha Soomaalida ka dhaxeeya kamid ah Muqdisho caalanka Soomaaliya ka wada dhaxeeya caasimadana Soomaaliya ka wada dhaxeysa marka waxa waaye caasimadda Soomaaliyana caasimad Soomaaliya lama dhihi karo haddii muwaadin Soomaaliyeed hanti uu leeyahay dukumiinti saxan oo u haysto haddii muwaadin kale xoog u haysto hay'ado sharciyo oo u kala bixi karan inay jirin ama caasimadan dhihi karin oo caasimadan iska dhaafayna ama dawladda kama jirtay nidaam aan leenahay aan ictiraafayna waxana waa meel fowda ka jirto laakiin dawlad jirto maamul gobolada jiro meesha waa caasimad muwaadin Soomaali hantidiisa aan u tii karin xoog loogu haystaa jiro walba balaaye kala kama haysatay argixisay muwaadin kale Soomaaliya ka haysto arrintaas arrin la aqbali kara maaha markaan 3 jeer 4 jeer in ka badan miidiyaha ka sheegay xafiiskayna waa u furan yahay guddi dacwooyinka dhulka aan sameeyay ilaa 7 xubnood gaarayo xafiis xiriirka degmooyinka sameeyay xafiis aniga si gaar ah igu qabto dukumiintiyada hantida يعني لسه استها يا سمي وحنا سوق جار الدوكومنتيا
intooda badan waa xallinay in kalena process ay ku jirtaa laakiin ogaada arrinta dhulka xamar la isku haysto ayaa rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo dhulka la isku haysto markuu muwaadin Soomaali ku yimaado ku yiraahdo aniga sabar loogadeedii waa aniga kulliyada sharciga waan ka baxay nootayistana waa haajir dhulka waa aqaan hadda dad magaalada markuu kuli yimaado sabar loogo oo ku yiraahdo sabar loogadeedii waa dhulkayga xaafadaas ku yaala amba booskaygi hebel aan iga haysto basiid waaye waxaa la wacayaa waaxda farsamada ninka jooga injineer sabar loogadan loota nambarkeeda iyo iswaafaji meesha ku taalan rag professional ah jooga sabar loogada kale inta u dhiibtay oo u sheegay meesha ku taalo soo ku wado ku dul geeyna waa tan ugu markaan saamarkii lagu dul geeyo oo muwaadin kala dadayso waxaan ilaahay maxaad ku haysataa waan iska haystaa aniga badbaadiyay 20 sano haystay ee afgaraan iray sheekada deegaanka ka soo qaban muwaadin kale waa ku wareejin waa dhamay kiisaska caynkaas ahna way yaryihiin badankoodana waa dhamaynay waana fudud yihiin go'aan la gaar hal maalin loo gaari karaa go'aan haddii marka bisha hal shibiro ii dhiman gudaheed qof muqdisho sabar loogadeedii haysato oo rajabuutada iyo sabar loogadii iswaafaqsan dhulkeedii oo qaylo ku jirin iyo nin aan waxba haysan oo ka haysto oo sii jiro mas'uuliyaddeeda ana qaadan waa ugu saaraynaa hanoo yimaado kaas waa ugu saarnay wax badan ka raadad waxaa ka arkaysa degmada Yaaqshiid nin dhahayo walaalkay oo cafi dhulkaygina waa kugu wareejiyay iyo nin dhahayo walaalkay waa ku cafiyay dhulkaygina waa la wareegay miidaha waa loo soo bandhigaa oo maleynaya waxaad arkaysiin kaaraan يعني 20 meeyo guri oo la burburinayo guriyahaas inta badan waxay ku yaaleen wadada kaaran waa taqaana waa Sodon wadada Sodon ka hay'adda Birima Boosta ah Soomaa Birima Boosta wadada number 1 ka galay oo gurigooda qaaliga xafaala imaaday xilli dibadisamaadka ka faa'iideysatay wadada Sodon ka ahayd ayay 20 ka mid ah dhisteen maxaa dhacay markay dhisteen xilliga fawdii ka faa'iideysteen waa 2014 ka hor ma aan xilliga ayay ka faa'iideysteen dadkii Birima Boosta ay maxay noqdeen marka sukuntay noqdeen marka dad badan marka guryooda waa xirmeen dadna guryooda waxay u sii jeesteen wada kale sii jeesteen gibigood 2 maalmood gudahood ma 3 maalmood dad midiya ka aragteen ayaa baldoosar la dhacnay gibigooda ka baabay markaan waan ka baabiinay degmooyinka hodana waad arkaysiin oo tala dhadheer oo la burburinaya iyagana waad arkaysiin waxaa soo dhan marka maxay ahaayeen guryo la kala haysta maaha laakiin meesha la dhistay waxay ku tumatay xuquuq dad kale ku tumatay wax dan caam ah ayaa wadada loo wada isticmaalaa Soomaaliya ka dhaxaysa danta caamkeeda Soomaali oo wajah ka soo ka dhaxay koow muwaadin kalena albaabka u bixin arrimahaas oo marka anaga waxaan leeyahay mashruucaas waxa uu ma cadarnay dawladda hoosana dhulkeeda hayso wadadeeda hayso baakinkeeda hayso cid dulmiga ka zuulo shacaarkeeda saas oo wal u guuleystay marka kiisaska cadcad ee dhulalka ah oo qofka dukumeenti sax ah oo kula imaahayo si degdeg ah xal looga gaari karaa waxaan ugu baaqayaa muqdisho hanti laga haystaa qof Soomaaliyeed laga yeelay hadda ma jirto waxaan leeyahay waxba kama jiraan waayay haddii laga haysta xafiiskeyga imaaw dukumeenti sax ah ila imaaw 3 maalmood gudahooda kaaga qaada laakiin waa la dukumeenti sax ah ila timaado balaana meeyo qodobka kale mushkilada meesha ka taagantay ii sheega marka waxay ku leeyihiin dhulkii laga haystaa dhanka kale sabarlooda afana ismaqalno meesha safta ka qoyanta waxaan rabaa dhankayga inaan si fiican u wado markaan dukumeenti waa ku imaana dhul laga haystaa xaguu ku yaala degmada masalan hilwaa ama kaaraan ama hodan haye dukumentigaaga aad markuu bilaabo dukumentiga waa hadduu dukumentiga dhumay waxaa loo baahan yahay sugnaan la timaado process ay gelaa intaas marka process ay shaqalaas ma aha wax marka bil iyo habeen iyo maalin go'aan loo gaaro ka dukumenti meesha maya koobiyo wata maya wuxuu leeyahay aniga dhulkiina habeen iga haysto
dukumentiina waa ka qaxay dukumentii macal guriga asaa isku haysto waa mushkilad kale dhanka kale u dhig waxaad arkaysaa dhul wuxuu leeyahay aniga dukumentigaygaa wataa ninkii markii loo tago wuxuu leeyahay ninkan sax dhulkaas ayagaa iskale qoyskan laakiin aniga 96 waa layga gatay waa kan xaliimo walaashiisa iga gadatay waxay tiri walaalkay aabbo waa dhintay hadna aabbo noolo dukumentiga wataa arrintaas marka waxay u baahan tahay mar iska ka baxaya ka bax maaha waa in loo hubiyo horta xaliimo dhulka ma gadato haddii xataa sharci darro u ahay gadashada oo milkiilaha asalka ahay laakiin hadday caddaato inay nootaayo tagtay xaliimo dhulkii gadatay aabbahay waa dhintay tiri maantana ay sabarloogada aabbayntiibii hore hadda anigu ciyaar يعني ماشي أصبحوا إذا وحيد كله يصير دعوية بروسيس يكلا بحث وكان هو إنه بوس كي سهلا أو بقى نبتها قبل ده هذا شرع درة وحقوق التوالي عقاب تدشا نين كان شرع درة وحلاوة قتنا السجن هذول وظفر زمي وأنا عدالة لجار كيس كمر كمعو هذا محكمة هذا كنت بدعوي كو هذا حبيبي ما وحلاوة ما كلا بحث كرمان كيساس كمر كهذا النجود تاجن وقوة أما دوكومنت ما هستو أما ولا يجتهي أما هدي له كوري هبل أشترك كواي كي كلام مقن أما يعني كيساس كمر كسال إسكوه هستو بعد كده يعني بروسيس لكن قف كي حمل تماده صبر لوجا صح أو وضعته دول كيدنا تستو أو صبر لوجا صح إلى تماده دول كيدنا أنا تصاعي عدة دكنا أنا وغالايو وأنا نادر بقول كنا هل مرة مو مشكلة صدق حتى بريجرت الحمراء ولا يقول بي وحنا ديارنا عدة دول جاي استنانو وغانو مشروع عاصنا النجا وحنا جاي استراتيجي مركب وحرنا إلى الذي نراه صاحبتك اللي ما كشرفت لو عمري بارين لك لا سوعد السوق حمر جدينا ويا لما بيره وياكم يا لا مركب بيره ما هايو عفوا بيره ما هاي بيره وجدينا هذه مقالة لقى بحوارك جرى بيره ودقح هي سلقة كوريك سياي بيره هاسمك قبلنا لا إسكاه يستاهل هذا لكن مقدشوا كل واي بنان أما هو يقول عندي صبر الله نورت ما له حنبلا قالوا إن مدكوا بنا أو بعنو عدان هي سننا عدان هي سنن وعن اعتراف سنة هي ضدك صبر الله ويكلم مكرتا بعد ما دقال قال أو قح أو دعي ويكلم مكرتا سوى بي وحكنا بكران قولي هو قحي كرتا وحصرنا وحصرت قال يعني خبر واي الخبر محله يحتمل الصدق والكذب هنا وانا أقرأ بينه وبين أقرأ مركز أنت سبارتاني بروسيس هو أيوة بعد سما مركز مدة هو بنتي أكو جرنا وحف أو ضد أسكت أنت وحف سحر واكل بعينا مركز معربة ههرتو عندما السعلال ولا السعلال ههرتو مقدشو أيها هنتلا إياها يستا ههرتو عندي كم أنت هنا هنوت ما هو بعينا مقدشو وعاصمة الصومالية Soomaali ayaa wada dhisatay bilicdeedina waxay soo noqon kartaa in maqaamkeeda markay Soomaali ku soo wada noqoto Soomaalina waxay ku soo wada noqon kartaa marka يعني النظام عدالة أو كجرو أو مواطن كلا كجا حقوق بدن أم بأول شيء كرؤوسن جرين أو شرعي كليه لقى بقى إلهي كسكو النظام كود دكسن كانوا وانا جوا أنت هاي حمر واي Soomaaliya ayaa leh Muqdisho Soomaaliya ayaa leh wadi ku soo dhaweynayna warbajoogtiina markaan kuwi ka soo qaxay iyo kuwi hadii la kureeyahay hadda maxaan ku dheelahay ku soo ka soo tago dhanba waxaan leeyahay ku soo laabta diyaar idinahay mashaakilaadkaas oo ka dhamaaday wixii jira waa dhameynayna markaan arintaas marka halkaas aan u baxo waa idin soo koobay saddex qodob waa dokumentiga saxa si fudud u bixina kii kala processan galina inaan waana dhameystirayna waqti u qaadana waxaan loo baahan yahay dhanka kala dawladda dhexe waxaan looga baahan yahay markay maxkamadda la aado in la helo garsoor cadaalad xildhibaanada oo ogyihiin xildhibaan jidna boqor kale uu fadhiyaa markii kiiska la isku qabsado guddiga dacwooyinka dhulka kale kuma filan duqa magaalada maxkamadda la aado soo maxkamadahaas iyo halkaas la wada aadaya annaga marka dadaal waxaan bixiyeynaa inuu kiiska hawada uusan ka raaricin oo qofkii sabarloogadiisa ka maqan aysan antiisa ku maqnaanin oo kiiska xal laga gaaro laakiin waqtigaas oo qaadana wixii kalena waa si fudud ayaa lagu kala baxay hadii la yiraahdo marka muranada iyo dhulka la isku haystana intaas baan ka leeyahay
waxba ma haysano boosas meel noo diyaariya waa maasantii waan soo wadaa taas waxyaabaha muqdisho ka sameynay oo ammaanka waxweynka tari kara waxaa ka mid ah mashruuc la yidhaahdo dirisayn annaga markaa imaanaynay cafwan maamulka wuxuu ku ekaa ilaa waax hadda waxaan gaarsiinay ilaa 10 tiriye gudoomiye waaxeedkii laantii tabeelihii diriskii ilaa 10 tiriye ayaan magacaawno weliba mushaar u qornay waxaan dhinaca kale ka dhisnay annagoo wasaaradda amniga kaashanayno yacni booliiskii iyo nabad sugidii la shaqay lahayd waxaan marka hadda muqdisho ku diyaarinay waxa la yidhaahdo community police iyo community intelligence oo wada shaqeynaya arrintaas oo ammaanka iyadana wax weyn ka tari doonta haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabaha aan iibsanayna waxaa ka mid ah haddii la yidhaahdo mar dhow imilooyinka hadduu alla idmo bisha November sanadka 2015ka waxaan qorsheynaynaa in magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorasho golaha deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir oo la soo doorto maxay anigu hadda waxaan ahay maayr la magacaabo ogtiin macay saas ma waa inuu tartiibsadaa marka waxaa laga maarmaan oo u diyaarina haddii la yidhaahdo inuu maayar yaa la soo doorto oo ibedel haddii la yidhaahdo dhalinyartaana waxaan ku kalsoonay in intaas gaarsiin doonto inta waqtigaas ka hor baayna waxaan doonayn in Soomaali oo dhan muqdisho kalsoonida ay ku soo laabato ay barnaamijka hadda aan ka sheegayno meesha uu ka baxo oo muqdisho waa Soomaali oo dhan ay u wada siman tahay doorasho la aado bisha November 2015ka maamul soo doortana yacni nabadelo waxa weeyaan waxa aan higsanayno qodob ka mid ah waxaan kaloo higsaynaa muddo aan badnayn kadib waxaan rajeynaynaa in muwaadin kasta oo ku nool magaalada muqdisho uu dareemo nabadgelyo xorriyad iyo cadaalad maadaama ay magaaladu tahay hooyada ummadda Soomaaliyeed magaalada muqdisho oo ammaan ah isanahay qurbajoogta Soomaaliyeed waa xoog muuqda oo wax badan ka qabtay qurbajoogta Soomaaliyeed waa xoog muuqda oo wax badan ka qaatay badbaadinta waddanka Soomaaliyeed la'aantood dadka Soomaaliyeed soo ma gaareen heerkan dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha in badan oo kamid ah waxay ku nool yihiin dhaqaale ay ka helaan qaraabadooda ama qayb kamid ah qoyskooda oo qurbajoog ah lacagta aad sanad kasta u dirtaan waddanka waxay ka badan tahay 1.5 billion dollar sida daraasad lagu sameeyay haddana waxaan aaminsanahay in intaas ka badan aad u samayn kartaan waddankiina waxaa la gaaray xilligii aad maalgasho lahaydeen waddankiina waxaan idinka codsanayaa in aad ka faa'iidaysataan horumarka bilowday oo aad haddaba dowr muuqda ku leedihiin waxaa jirta fursad aad ku imaan kartaan magaalada muqdisho oo aad ugu faa'iidaysan kartaan bulshada magaalada khibradiinana iyo aqoontiina aad keeni kartaan maadaama uu amniga soo hagaagayo waxaa jirta fursad maalgashi oo u bannaan Soomaalida iyo ajaanibta waxaa habboon inaad dalkiina maalgashataan oo aad ka hirgelisaan adeegyada laga helo dalalka aad hadda xilligan joogtaan ma idinka doonayo mana idin dhahayo ka tanaasula heerka nololeed ee aad halkan ku haysataan laakiin waxaan doonayaa inaan idinku caawino inaad heer nololeed oo la mid ah ka samaysaan magaalada muqdisho waana idin soo dhaweynaynaa markaasaan leeyahay waxaa laga yaabaa muqdisho ku soo noqda oo dhisto markaan idin leeyahay doodisha bardoodisha $300,000 joogo ama $50 milyan joogo imaada ee gatay dhista mid ilahay waxaan rabaa inaad magaalada dhulkii ka baxsanaa marka gabadha u jawaabo oo dhanka bari iyo dhanka waxaan ku leeyahay waqooyiga iyo dhanka koonfurta magaalada ka baxsanaa inaan idinka siino dhulal waaweyn oo maaragta 100 mitir isku weedaar qofkiiba 40 isku weedaar ah oo aad guryo waaweyn ka dhisataan oo aad warshado ka samaysataan oo new muqdisho waa ka samaysaan oo yacni sabsandarka hadda qaabka hadda waddankan ka jiro kale iyo quruxda aad meeshaan ku aragtay mid halkan aad ka samaysaan warshado aad ka samaysataan marka dhul waa laydin siinayaa dhul waaweyn aa laydin siinayaa
adinka imaada mashruuc la imaada warshada la imaada maalgashi la imaada iskuulla la imaada jaamacada la imaada soo laabta dhul annaga idin hayna hadii ilaahay وبجوب بدن ayaa idinkaga horeysa xamar oo wax badan ka qabteen adinkuna waxaas wax la mid ah ayaa qaban kartaa waa idin soo dhaweeynaa in waxaan idinka rabaa waxyaabo xamarna wax u tarayo adinkana aad si fudud u qaban kartaan isleeyahay waxyaabaha u baahan waxaa ka mid ah مثلا baabuurtii dabdamiska muqdisho way ku yartay shacabweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan muqdisho haday meel caaw dib qabsado 3 baabuur 4 baabuur kaliya gobolka banaadir leeyahay halka uu laba mid haduu haleeysan yahay waxa laga yaabaa labada kale inta hal meel u dirto meel 3 dib haduu ka kocinaan lahayn markaan waxaan idin ka rabnaa inaan yaani jaaliyada Sweden joogto guud ahaan gaar ahaan magaalada Stockholm adikoo iskaashaysaan gibigiin dhammaantiin ilaa muqdisho waa caasimadii inaad noo soo dirtaan baabuurta dabdamiska iyo ambalaas waxaan kaloo idinka rabaa inaad noo soo dirtaan baldoosaro iyo bogleenno aan uga shaqayno geedihuudkana magaalada ugu gurno biyo mareenka iyo turkiga noo dayactiranaha wixii naga jaba aan ku toosino oon magaalada aan uga shaqayno iyo gaadiidkii nadaafadda magaalada waxyaabahaas basiidka ah adinka haddaad isku tagtaan aad noo soo iibisaan oo aad noo soo dirtaan muqdisho wax weyn ay ka qaban kartaan haddaan idin yidhaahdo fisho governo $1 milyan ayaa $1.8 ku baxaya $1 dollars $500,000 isoo xiray ama $1 milyan keena hay'ad leedii waa idooga meeshaan loogu tegay markaan lacagahaas oo dhan hana siinina hadhow intaad ka bixisay aad leediin hadda muga ma jeebka ku qaatay intaas lacag noo soo dirinina adinka is aruuriya hadii aad 3 ambalaas ama 2 ambalaas iyo 3 dabdamis 2 baldoosar iyo 2 bogleen intaad noo iibisaan markaad muqdisho keentaan wakiilo soo dirsataan baabuurtii socotaa maamulka ku wareejisaan anagana telefishinada waxaan idinka tusaynaa ayagoo shaqeeyayo ku qoran jaaliyada Soomaaliya Sweden kaasa marka anagana wax noo tarayso adinkana wixii aad diibateen in dalkiina lagu shaqeeyayo idii cadayso sidaas aan noo balama waxaan idin u mahadcelinayaa ururka maxaan ku dheelayaa guddiga qabaqaabada soo dhaweynteeda ee sahar u horeyso waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii yani ka qayb qaatay barnaamijka soo dhaweynteeda xildhibaan amiin ugu horeeyo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed iyo gudoomiyada dhammaan odayaasha ka soo qaybgalayaasha haweenka waxaan u mahadcelinayaa fanaaniinta iyo saxaafadda mudane marwooyin waa salaamantiin waan kulmi doonaa waxaan idin leeyahay muqdisho ku soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.